Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Home Design. Magacaygu waa Engineer Cabdifataax AutoCAD. Waxaan sharxi doonaa qaabka loo isticmaalo AutoCAD Dimension or AutoCAD Unities. AutoCAD Unities markaad sharxino qaybtaas cad ayaad AutoCAD-kaada dimensionkiisa aad ka bedeli kartaa micnaha unitkiisa. Aan isla daawano qaybta hoose waxaan ku qorayaa Unities. Waa kaasa waad ku dhufanaysaa. Then markaad ku dhufatid AutoCAD-kaada waxaa kuu soo bixi doono waxaa kuu saaran uu ku leeyahay inches unit scale-kaaga cabirka kuu saaran dimensionka waxaa waaye inji. Anaga inji hadda ma rabno, waxaan saaranaynaa inaan saaro inches, waa inaan ka bedelna aan saarnaa mitir. Okay, mitir. Then qaybta korona waxaa ku qoraysaa 0 hadda noo tahay 0.0 ayaan geynaynaa siduu hadhooti uu cabirkeena at least waxaa 5 senti ka yar camal uu noo ugu aqriyo. Okay, 0.0 wax kalena uga caawinayso dimensionada aadka u yar oo jajabka saa'idka galay ay ka caawinaysaa inuu ku aqriyo dimensionkaaga. Then waxaa leedahay okay, halkanna waxaa iska fiirisaa international meesha ku qoran tahay waa inay ku ahaataa international, aan ka dhigin American system. Please international ayaad ka dhiganaysaa halkan. Then waxaa leedahay okay, sidaas ayaa cabirkaaga uu kugu bedelmay aad ku saaratay meter system. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.